بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من شكر وأرأف من ملك وأوسع من أعطى وأجود من سئل وأنصر من ابتغي. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تضاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. waxaan wax yar ka tilmaami doonaa walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh fadhigan qiimaha badan oo ilaahayna soo waafajiyey subxaanahu wa tacaala. waxaan wax yar ka sheegaynaa oo tilmaamaynaa buhtaanka ama been abuuradka ama markhaati beenaalaha dhibka uu keenayo. iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu uga digay beenta asal ahaanbu waa xaaraan. 2 jeer ilaa 3 jeer oo beentu la fasaxay way jirtaa, laakiin beenta asal ahaan waa xaaraan. wax walba oo beenta looga fogaan karaana waa in la sameeyo. nabigana wuxuu u ballan qaaday guryaha jannada ah ka mid ah ayaa u ballan qaaday yiri nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam: liman tarika alkadib, ninkii beenta ka tago oo iska dhaaf. wain kaana maazixan, kaftan baa u sheego beenta inuu ka tagaa loo baahan yahay qofka muslimka. saa darteed aayadan daliilka quruxda badana waxayna tusayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga digaayo beenta iyo hadallada beenta oo dhan. ilaahay wuxuu leeyahay: wajtanibuu qowla zuur, hadalka beenta ah ka fogaada. war ka dheeraada hadalka beenta ah, waxba faa'iida ma lahan. ilaahay mar kale wuxuu leeyahay: maa yalfidu min qowl ilaa ladayhi raqiibun catiid. qofka mu'minka ah ama qofka bini aadamka ah kuma dhawaaqo wax been ah, kuma dhawaaqo ilaa ma aragtaa raqiib iyo catiid ayaa dushiisa saar. saa darteed ummaddu beentu mu'min maahine qof kaloo iska dhaafi kara ma laha. been abuuradkana wuu fogaaday oo in qof muslima lagu been abuurto oo nebi lagu been abuurto waaba la isaga tegay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba lagu been abuurtaa. ilaahay wuxuu leeyahay xadiisul qudsi: ibni aadamka waa icaayay waana igu been abuurtay, mana mudno inuu ani igu been abuurto una icaayo. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay: ibni aadamka been abuuradkuu ii geystay waxay tahay inuu idhaho ilaahay ima soo celin karo. anigoo hore u abuuray abuurkii hore, kan hadda aan soo celinta ah ayaa igala fudud u leeyahay ilaahay. amaa shatmu, cayda uu ilaahay u geystay ibni aadamka waxaa waaye siduu ilaahay xadiisul qudsi ku tilmaamay inuu yidhi ilaahay owlaad ayuu leeyahay. ilaahay asaa isnafinayo wuxuu leeyahay markuu arrintaas sheegay kadib ayuu wuxuu yidhi: wa ana alaxadu samad, anigii axadka ahaa ee keliga ahaa ee samadka ahaa ee xaajooyinka dhan loo qasday. alladii lam alid walam uulad, kii aan waxba loo dhalin asna la dhalin. saasuu leeyahay: walam yakun lii kufuwan axad, wax axad oo ii dhigmaana una jirin. aniga nooca ah ayaa ibni aadamka igu been abuurtay ina caayay. sidaa darteed ibni aadamka waxaa u roon oo maslaxadiisu ay ku jirtaa inuu beenta dhaafo. saa darteed xadiidka nabiga wuxuu tilmaamayaa uu warinayo abi bakra nufeyc ibni xaarif, saxaabigan jaliilka. wuxuu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam: maidin sheegaa dunuubta kuwa ugu waaweyn? maidin tilmaamaa? saxaabadu aad ayay u jeclaayeen saxaabada hadalka nebiga. waxay dhaheen: rasuul allow noo sheeg. markaasaa nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam:
الإشراك بالله كبائر وحكم دا يذنوب تواوين إن الله لو ما رأيت اللغو بين أبورته وربك لا عبده عبادة دي سي دتك الله قبته وحكى الله بقى حقوق الوالدين أما والدك وعاصي لغو نغضه النبي قال أنت عمرك الشيء جاي وحقوق الوالدين وكهلايي واشتراك بالله وكهلايي ودنجيجي وحبوع عسكنا صلى الله عليه وسلم فجلس وصفر يستمر كان متكئا فجلس وصفر النبي مركاسا وحو يري الا وقول الزور هذا الكبين تاعنا وحو كمد يحي كبائرته كمد والاسكو قرايا marka qof walba muslima maanta waxa laga rabaa an tahriqa awraqa sayiat inaad gubtid waraaqay xumaanta lagu qoray wa tabdila awraqa alhasanat aad ku badashid waraaqa hasanat maxaa yeelay waxa bilowday sanad cusub oo 2020 waxa laga soo baxay sanad kale oo soo dhamaaday 2019kii waxa laga rabaa waraaqahaagii xumaanta sameyn jirtay dunuubta aad gali jirtay inaad ka toobad keentid oo toobo iyo xasanaad aad ku gubtid waraaqaha lagaga tirtiro wanaag badanna lagu qor nabiga wuxuu yiri alla wa qawlu zuur war hadalka beenta alla wa qawlu zuur war hadalka beenta iska jira hadalka beenta hatta qulna laytahu sakat saxaabadu waxay leeyihiin illa aan isniri oo aan iska dhahnay alla nabiga mu iska aamuso uu daalay illa inta suudi xadiidkuna waa muttafaq sida darteed xadiidka nabiga wuxuu ku tilmaamay been waxa ugu filan qofka inuu ka sheekeeyo oo uu ku hadlo wax walba uu maqlo qofka wax walba uu maqlo inuu sheego ayaa been ugu filan sidoo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu yiri nin allah u naxariisto hadlay hadalkiisii ka qaniimeystay ama aamusay oo aamusitaankiisii ku nabad galay waxa laga baahan yahay qofka muslimka ah hadaad hadlaysana hadal qiimo leh ku hadal hadaadan hadlaynin aamus sida darteed aan ku dadaalno in hadalkeenu hadal qiimo leh uu noqdo oo macaasida ima la yacniga iyo xumaanta aan ka zuulno walaalayaal aan iscafina insha Allah wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum